السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب soo dhawaada mar kale waxaan idin soo gudbinayaa qaybta saddexaad oo ka mid ah website-kii dhammayska tiraay aan sameynay. Marka qaybtaasi waxay noogu joogtay inoo sameynay section-kii labaad oo ku saabsanaa goobaha dalxiiska ugu geyn doona dadka. Waxaan sameynaynaa section-keena ugu dambeeyay wuxuuna ku saabsan yahay footer section. Marka xaggan desktop-ka haddaan tago waxay yaala folder-kaygii فايلشيد هورا ayaan wali ku sii sameysanayaa labadeedii folder wax image uma baahni intii hore baa ku jirta. Then waxaan soo furanayaa sublime text-gayga faylkii hore halkaas ayuu ii marayay. Halkan ayaan section cusub ka sameynayaa. haddaan comment geliyo kabacdi xagga hoose ayaan tagayaa. waxaan bilaabayaa markaa inaan section-kii sameeyo. section class footer. class labaad row. saddexaad classkeedu waa column. waxaan ka dhigayaa column-ka waxaan isticmaalayaa 3 column. then h1 okay paragraph-ka markaad ku qortid h1-ka paragraph-ka aad siisid kabacdi waxaad sameynaysaa column-kaas oo dhan ayaad copy-inaysaa. column-ka oo dhan mar labaad xaggan aad tegaysaa column labaad paste ku dhahaysaa. okay column-keena labaad waxaad dhahaysaa h1-ta waxaad ku qoraysaa services-ka ay shaqadu qabato. okay mar labaad hoos tag column-kii mar labaad paste mar labaad soo koobiyo column-ka column-kan oo dhan soo qaad xaggan kaalay xaggan paste ku dheh. then xaggan intan taatir waxaad tirahdaa markaa contact us. okay intaan markaad samaysid mar labaad copy dheh column-ka oo dhan. intaa aad column-mada copy-inaysid row waxaa ka dhex bixin. okay intan taatir waxaad tirahdaa markaa social media. okay xaggan markaa waxaad tirahdaa icon-ka Facebook. sidoo kale qoraalka dhigto ka soo bixi doona web page-ka Facebook dheh.
okay afarta kale markaad samaysid waxaad imaanaysaa halkaas waxaad tegaysaa rowga markaa dhifta rowga bartay ka xidhan tahay baad tegaysaa halkaa hoosteeda tegaysaa dabeetana waxaad samaynaysaa hal hr baad samaynaysaa hal line oo dheer dabeetana hoosteeda tegaysaa waxaad qoraysaa hal btag waxaad siinaysaa classkeeda waxaad ka dhigaysaa halkaas classka waxaad ka dhigaysaa copyright dabeetana halkan waxaad ku qoraysaa halka uu copyright-ka qoro oo halka uu copyright-ka qoro oo dabeetana hal icon baad soo qaadaysaa hal icon kaliya soo qaad waxa qoraalka soo qaadin copy dheh dabeetana xagga ugu dambaysa paste ku dheh okay control s dheh markaad save garaysid right click dheh open in browser dheh ana aragna bal html keenu siduu soo baxo okay html keeni sidan ayuu soo baxay waxa weeye waa html khaliya ma laha wax baalkeera ma laha wax css okay hadaba aynu ku daro css waxaan tegnaa css keena ayaan tegnaa marka horse waxaan soo qaadanaa sectionka oo dhan barta laga maamulo waa footerkan dabeetana css keena tag dot ku paste garee kabacdi waxaad siisaa marka ugu horeysa padding 100 pixel korka top 100 pixel 20 pixel left and right and 20 pixel bottom background linear gradient siinana save dheh browserka ku noqo markaa eeg si uu isu bedelo okay colorka backgroundka waan siinay paddingka waan ku daray fartana cadaan bay ka dhigay the second thing aan doonayna inaan sameyno waxa weeye inta horta soo koobiyeyso classka footerka xaggan imow dabeetana waxaad raacaysaa ku noqo xaggan html-ka h1 tan waxaad igu samaysaa class as looga ahaan ayaan isticmaalaya marka looga iga dhig save garee hilaawin dabeetana koobiye looga classka loogada ku noqo css-ka halkaa ku paste dheh dabeetana loogadan waxaad siisaa font size c marka ugu horeysa font size-ka waxaad tirahdaa 30 pixel margin top waxaad tirahdaa 15 pixel c okay margin bottom iyadana 15 pixel c save dheh browserka ku noqo refresh dheh okay waad aragtaa wuu yaraaday xagga sare iyo xagga hoosena uu ka yaro dulka qoraalkan kale okay xaggan hoose tag paste ku dheh sorry classkan soo koobiyey classkan markaad soo koobiyeysid footerka halkan kaalay ku paste garee dabeetana btag dabada ka raacay sidaad paragraphkan doonanaa inaan hagaajino okay paragraphka waxdaasaa text align justify hasinaado okay font size baan siinanaa font size waxaad siinaysaa 15 pixel mar labaad xaggan hoose tag paste dheh dabeetana waxaad raacaysaa h1 waa ciwaanada sida social media contact us markay lahayn oo kale markay lahayn services oo kale kuwaas ayaa h1 ahaa okay h1 ta font size-keeda waxaad siisaa 30 pixel c sidoo kale text align-keeda waxaad siisaa lefty margin top 15 pixel margin bottom 15 pixel save dheh dabeed waad aragtaa saas way kala yara dudukeen wayna fartoodina way yaraata okay shayga ku xigay aan doonayna inaan sameyno waxa weeye waa inaan iconiska iyo qoraalka kala durkino okay footer baad soo qaadaysaa
dabeetana hadaasaa dot row dot fa kabacdi hadaasaa font size c marka ugu horeysa 15 pixel c hadaasaa markaa padding right waxaa siinaysaa 20 pixel okay control s buu leedahay sidoo kale kan oo kale waxaad ku darsaa padding right 20 pixel control s soo noqo copy refresh okay waad aragtaa uu kala yara dulduulka okay shayga ku xiga aan doonayna inaan sameeyo waxa waa b tag tan ugu dambaysa classkeeda inoo soo qaad xaggan kale waxaad ku darsaa waxaad ku xijinaysaa hr colorka background-kaad ka bedelaysaa background-keeda hadaasaa gray c ef margin top waxaad kasoo dukunaysaa 10 pixel control s refresh okay I think it's good okay waxaad ku noqonaysaa xaggan waxaad tegaysaa html-kaaga tag halkan oo kale icon-ka oo kale Instagram baa inuu ku qoran inaga bedel مثلا heart for wadna oo kale inay dhigno heart markaad ku qortid refresh de okay wadna caadi okay wadna kala kisayeen doonayna inay bedelno xagan ku noqo css-ka ku noqo inta soo qaad margin lefty 10 pixel then refresh it okay وين دبني footer section casharkayna caawa intaasuu ku egyahay waxaan si xushmad leh idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan videogana aad like saartaan aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.